labaatankii Juulaay 1977 iyo 3 Maarso 1978 Soomaaliya waxay dagaal la gashay muran kala dhexeeyay dalka Itoobiya oo ku saabsanaa dhulka Ogaadenia ay hadda la yiraahdo ismaamka Soomaalida Itoobiya. Dagaalkaas waxaa looga awood roonaaday dalka Soomaaliya waayo Itoobiya waxay gacan ka heshay Midowgii Soviyeeti wadamo ay ka mid yihiin Kuuba iyo dalal kale. Intaa wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxaa ka dilaacay jabhado hubeysan isla markaana dagaalo la galay dawladii kacaanka ee dalka ka jirtay iyadoo ugu dambeyntiina xukunka ka tuuray sanadii 1991. wixii ka dambeeyay waqtiga dalku wuxuu noqday wax loogu yeero dal aan dawlad ka jirin. waxaa furmay cir, dhul, bad iyo dhinac walbo. dagaaladii sokeeye waxay sababeen barakac fara badan iyo dadka Soomaaliyeed inay u hayaamaan wadamada dariska ah iyo dhammaan caalamka. sidoo kale waxaa isaga hayaamay dhammaan duurjoogtii iyo noolihii oo idil si ay uga badbaadaan sawaqanka rasaasta. muddo 30 sano ku dhawaad dalka waxaa ka socday xaalufinta dhirta, iibgeynta duurjoogta, wax alla wixii dalku u lahaa. intaa waxaa dheer in isbeddelka cimilada ay saameynteeda soo gaartay dalka Soomaaliya iyadoo waqtiyadii ama xilliyadii xagaagu roobku yaraaday, jilaalkuna sii daba dheeraaday, iyadoo markii deerta la gaarana ay roobab lixaad leh ka da'ayaan iyagoo sababaya daadad ay dad badan wax ku waxyeeloobaan. dhacdadii ugu dambeysay 28 Oktoobar 2019 waxaa soo fatahay webiga Shabeelle isagoo saameyn weyn ku yeeshay dhammaan deegaanada uu maro sida Beledweyne, Mahadaay. madaxa Hirshabeelle waxa uu sheegay in webigu 50 sano mar uu sidan biyo u keeni jiray, laakiin tani ay 2 sano gudahood iska soo daba noqdeen. waxaa ku geeriyootay fatahaadaasi dad ka badan 30, qaar kalena waa la la'yahay. qaar waxay ku go'doonsan yihiin guryahooda oo diyaarad maahane si kale oo loogu tagi karaa ma jirto. waxaa laga baqayaa in ay dilaacaan cudurro maadaama uu biyuhu kor u kacay 1 mitir iyo bar, isla markaana uu ku darsamay qashinkii iyo biyihii wasakhda ahaa ee magaalada. hadda oo aan qoraalkan ku guda jiro waxaa la ii soo sheegay inay dad ku dhibaataysan yihiin ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. dhanka kale dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale gobolada, shirkadaha ganacsiga iyo shacabka Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah waxay muujiyeen dareen xoog leh, waxayna isku dayayaan inay abaabulaan si ay dadkaasi ugu gurmadaan. shacabka Soomaaliyeed mar u horeyntii waxaa looga baahan yahay kow inaan Ilaahay u tooba keeno si uu noogu qaado culayska, waayo waa waxaan gacmaheena ku kasbanay oo Allah aan barino. ما نزل الله بلاء إلا بالذنب وما رفع الله إلا بالتوبة. وأرهد أوليه شيخ محمد النابلسي بلايكم مسودكتو ذنبي موياني وحكى لنا إلهي ومقاضو إلا توبة لغا توبة كينو. لابو وحانا نقوبة هنا نسعفينو لمانتين isla markaasna aan Ilaahay cafis weydiisano, qof walbana uu qofka kala cafiyo, waayo cafiska waxaa laga helaa darajo iyo dambi dhaaf iyo sharaf. 3 waa inaan cadaaladda ku dadaalnaa sida 4.5 maadaama aan nahay dad islaam ah. maamulada iyo mas'uuliyiinta waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ugu weyn 1 biyo iyo raashin, daawooyin, wax ay dhaxanta ka huwadaan isagana difaacaan kaneecada. 2 waxaa looga baahan yahay in dadkaasi dibadejin loo sameeyo, dadkii ay ganacsiga iyo hantidooda ku waayay wax uun garab lagu siiyo si ay u maareeyaan noloshooda. 3 in dadka go'doonsan loo gurbado, kuwa la weysan yahay la baadi qorsho loo sameeyo si looga hortago fatahaadahan oo la sii ogaado marka roob lixaad leh ay ka da'ayaan Itoobiya. 5 in lagu beero dhir webiyada jiinkooda isla markaana la joojiyo xaalufinta dhirta oo daab u ahaan jirtay webiga si uu si xawli ah u fatahi.
in water management ama webiga oo loo sameeyo qorshe biyo xireeno lagu maamuli karo xawligooda iyadoo loo kaashanayo dowladaha aanu saaxiibka nahay sida dowladda Turkiga. 7 dadka Soomaaliyeed waa dad iimaan leh oo alla ku kalsoon ogolna qadarta iyo wixii alla keeno in lagu sabro, laakiin waxaa loo baahan yahay dadaal iyo caqli dheeraad ah. waa in la abuuraa qasnad lacag lagu ururiyo oo loogu talagalay masiibooyinka dabiiciga ah. waxaan ka codsanayaa asxaabteyda iyo dhammaan dadka daawada videogan inuu dareenkoodu kaco oo u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatadaas iyo meel walbo oo dhib ka yimaado. ugu dambeyntii waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu naxariisto dhammaan dadkii ku shahiiday daadadkaas, kuwa dhibaatada ku jirana uu Ilaahay ka saaro, inta wax la baxdayna u bedel khayr qaba u siiyo, kuwa aan la bixinna uu waafajiyo. aamiin. waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.